walaalay horta aan iska barno aniga Axmed baa la yiraahdaa Xaaji Axmed haye walaalkayga yarna waa Faysal ha wiilkan isaga dhalay ma sha Allah wiilkan asaga ayaa dhalay kanu ka yar yahay kana waa curudkeeni sax markan maanta waxaan kugu nimi xaaji weyn ayaa naga ka soo gashay marka waa kaas de walaal laakiin waxaan ku leeyahay hee odaygii reerka ayaan u baahanahay maanta inaan la xaajoono inaan la kulano ayaan u baahanahay Allah u naxariisto xaajigii reerkan dambaabay xaqii baa helay tiisii runta ahayd buu tagay Allah u naxariisto laakiin rag buu ka tagay ma sha Allah waa khayr rag mudakara yaa oo nin rageedii ah ayuu ka tagay ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah xagga gurigan aniga ka mas'uula adiga aabiyo hooyana u ah alxamdulillah yaa maanta magacii meel cid kale xaajada u socotaan mid cid kale reer kale loo raadinayo ma jirto waa ma sha Allah ma sha Allah ha intii dhimateen Allah u naxariisto waa run Allah u naxariisto na sharaabka u keenade na yaadeen na martay sharaabka soo siiya wiilkan iyo walaalkayna ayaa hadalka bal ha ku waramaba war Faysalow دوا تصوت مغلسين تجانا ريرك هويا بابا واه ما شاء الله يا حديو ميرك دينا انا أورضو يقويد عرورتي يقويد وياهي وصيدا كو شيغا ولا ها ولا المحد السعودين بل هدارن كيسي تاتابتا انت انما سو سودا وديك ريركيغو وا عرضكي هاي كان ويلكيغو عرض واي كان ويلكي كيرا ها ما شاء الله marka walaalkayga war bixinta lagu faafaayin waa si fiican walaal sheegtay walaal way horta intii dhimatay Allah u naxariisto aamin walaal mar waa hadii aad tiri reerkii ana waa baa oo hooyana aad tiri ha waa khayr wallahi waa walaale waxaan kugu soconay haye sidii barigii hore dhaqankeena ummadda Soomaaliyeed ha oo reer gabdhaha ka doonta haye ayaan u soconaa waay ma garatay wiilkan adeerkaan u ahay assalaamu calaykum calaykum salaam calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu seeta adeer wala fiican yahay caafimaadkaaga ilaahay mahadiis alxamdulilah waa ilaahay mahadi wiilasha aad noo sheegaysay weeye Soomaaliya ha wayna kayga curad ma sha Allah kii kalena uu soo socda ha ka yaraa isaga haddii ilaahay idmo waxaan doonaynay ha gabadhaadii muna jaama ayaanu u doonaynaa wiilkeena inaad nasiisid wax alla wixii horta intaana dhicin horta arrinkaasi waxbaan kaa waraysanayana ku tacliin muxuu leeyahay dee inanka tacliintiisa ilaa dugsi sare jaamacad muu gelin weli jaamacadda ma gelin muxuu camal hayaa dee imika waa liyartaa bilcamalka haddii waar soo soco maxaad kaalaydun la haysaa dee soo soco waar soo soco maxaad faraha la taagtaagaysaa dee amarkana ilaahay baa keenay ha balin yar iga raalle ahaa haye walaal waay walaal ku sugina haye walaal haye khayraynoo noqon doontaa adeer ii waran soo ma fiicnida alxamdulilah adeer seetaadu ma sha Allah hooy sidee sheegtay curadkii baa tahay soo maaha ma sha Allah ii waran adeer soo xaaladu asal ma alxamdulilah aad baan wacanay ma sha Allah adeer maalmaha noo wada aragtay ma sha Allah waa nimcaysan ilaahay mahadiiso roobaa noo da'ay waa nimcay ilaahay waa wax ilaahay loogu maadnaa waxa weeyaan kulay hooyade waad iska soo horeyseeno waad soo wareysatay aad waan soo wareysanay marka inaguna was baran doonaa insha Allah hadii ilaahay dhaa marka horta ay marka hore waa inaad sharaabaysan mahadsanid wiil wax garadaa tahay ma sha Allah taala khayr Allah ku siyaada khayr Allah ku siyaa laakiin maxaad ku dhibaysaa may dhib ma haader waan isku leenahay ma sha Allah taala ma sha Allah ma sha Allah horta barasho wanaagsan hooyana waan u warannay laakiin waxaan jeclaysan lahaa walaalkayga iga yar oo wiilkan aabihiisa inuu sidan isi ka fiicanba kugu warramo war Faysalow u waran adeer horta wax kale ma jiraan waa khayr reer bay noo soo kordhay ina kan ag fadhiya anaa dhalay walaashaana waan doonayaa ma fahantay waa sida arinku ina keenta loo doonaya ninkana waa ina kan doonaya walaasha muna jaamac ayaanu la doonaynaa ma fahantay hawshan iga soo gabagabay waa si fiican ka udhe hee walaal horta mid baan idiin sheegay haye
khayr anigu inatayda waxaan ku soo koriyey nolol raaxa leh qasriga aad arkaysaan ee indhuhu idinku daalay yaa ee kabaha lagaga soo bixinayo albaabka ugu horreeya ayaan ku soo koriyey inatayda haddaad aragto heedhade biyo la'aan halkaa kuma xaganayso haddama fahanteen waaryaadhahe gurigeeda qolkeeda laa si weligeed yaa la hedmay seexan haye 24 saac saasaa waxaan kuri waxay doontaba loo dhigaa haddama fahanteen markaa inatayda caynkaan ku koriyey ee ilaahay baan ku dhaartay aanad macna tacajabaad u dhimanaysa saan u koriyey miyaa doonaysaa inakaagan yaa inakaagan bilaa camalkaa ee bilaa maxay haytoy in waxbarashada miyaa doonaysaa inaad inatayda anu guuriyo lacagtanaad sheegaysid ilaahay baa bixiye mar wey anaa u jooga xooladayna anigu uma baahni waryaa ma kuu sheega yuu ka go'a arrinku haye aan idiin sheego inakaagu jaamacadda uu ka soo baxay waa jaamacadda rabta iyo rarrabta ma fahanrabta macnaheeda noo jilcibal anigu afkii idinku habboonaa idinku odhan maayee kii idinku habboonaa idinka idinkuma odhanaya inankayga curdeed heedhade ayaan idinka hadho rag idinla mid ah ayaad nooga hadhay horta inaad heristaji mayowkaadiiba waxoogaa yar casaamaduna way kugu kacsan tahay xilliganna kuleel weeye magaaladii hargeysa dee bal noo waran hooye waxaa sheegaysa in adeer macaan waxa weeye arrinka weligeedba inan laysaga soo fadhiisan waa siday tahay waana laysiin jiray laakiin inankaa inanta naga doonaya inaan inantaydii dhaqi karaa oo meel ma garanaysaa aanu ku aamini karno haba yaraatee ma aha maxaa dhacay adeer wanaag iyo sharaf iyo cise ayuu noo leeyahay wiilkayguye waa sidee waxa weeyaan horta ilaahay wuxuu yidhi ma sinna kuwa wax bartay haye iyo kuwa aan waxba baran haye waxa weeyaan haye nin aqoon-yahan oo soomaalida reer jabuutiya ayaa hore waxaa looga hayay afka kriminalka ee dembiilaha ah uma qalmo ama kuma habboona inuu nolol la qaato qof bilaa dembiya oo wuxuu dilay miyaad aragtaadii waxa weeyaan inankiinu waa dembiile haye inantaydana waana jecello waa inan cisi iyo karaamo iyo sharaf naga mudan haye oo gurigooda ku nool haye waxa weeye inankiinu waa dadka moobilada qaada waa dadka moobilada qaada weeyaan ma wiilkayga waryaahe war waxaas iskumaanaan ogeyne war faysal walaalo war waa maxay waxaan la sheegaayo maqaadiir war shil walaalo shil bay nagu dhacay waryaahe hadal waa maxay dadkani waxay sheegayaan shil bay nagu dhacay war moogtahay nina xaggiis inaad cuntay waryaa adeer wuxuu doonaya inantaydiiyo moobilkayga in isku darsado wax ma jiraan meeshan naga kiciya naga marya meesha kacana dhaafa kacona dhaafo naga dareera sharaabkana waad haraadantiina gurta qaata qaata waxaad soo doontay waxaad cabtaane gurtoo qaata iimaankaad laadiina bal waxay noola imanayaan eeg war ordana dhaafa haye marka horeba in albaabka laga furo may ahayn sabab looga furaya albaabka haye inantaas waa aniga inay ceebanayso waan garanayay inay aniga ceebanayso inay ceebanayso waan garanayay inantaas waa idin ceebaysay birta kaasra xabad baa ku habboon xabad inaad dafoorka ka saarto ood weliba adigu ka saarto ayaa ku habboon waariyaahe adaa reerka u weyn adaa reerka u nina adaa reerka maxay ay tay u odaya ma fahantay waryaa allow naxariisagii maanta hadduu noolaan lahaa ma waxaasoo kale u soo geli laha iima soo galeen meesha ka kaxadsheegtay soo galeen ma sidaasaad cunug ku tahay ma ninka moobilkayga qaatay bay soo doonan lahayn inta waarya u maror dilaacaaba ma dhibaataan nafti baaba haysee way dilaayo way ciil bay biday haddaan kurka ka goyn waayo haddaan birta kaasli waayo heedhade haddaan birta kaasli waayo way ceebaysay ma waxaad garan weyday heedhade inantiina yar waxay soo wadiyo waxay galaysa kala ogow waxaad loo isamadni weyn ahayn saadi baan lahayn waa maxagadii aamusilsa dhiigga tuuba lagaaga nuugiya naxaska loo waayey baaliyow laxdaa ee aqoontu dhinac walba ka martay ee weliba saawaadlay war ma waxa maanta goori ma laada nin damiir la tahay ninkii moobilkii walaalkaa qaatay markaasuu inankaasoo doonan laha labadii labaana isugu kii joogsanayay adiga iyo iyadaba akhas baad tiini